Bismillahirrahmanirrahiim. Maanta waxaan ka hadlayaa cashar yar oo muhiim ah ku saabsan sida aad WhatsApp-kaaga uga dhigi karto mid qarsoon. Setting-kaas aad tagaysaa, waxaad ku dhufanaysaa account, waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qortay privacy waa siraaha khaaska ah ku dhufatay. Haddaad meesha ku qorayso ku dhufato waxay noqonaysaa waa in la arko waqti kugu dambeeyay. Marka waxaad ka dhigi kartaa nobody aniga kaliya arkaya, everyone baa ka dhigi kartaa qof walba. My contacts baan ii tahay oo macnaha dadka ugu xareysan. Profile-kuna sidoo kale about-ka waxaa weeye waxyaabo kugu qoran everyone baa ka dhigtaan. Status-ka dad baad ka xiri kartaa hadaad doonto ugu talagasho. Marka waxaad ka dhigi kartaa only me ka dhigi, only contact halkaas ku dhufanaysaa dadka qofka aad rabto waa iska xiraysaa. Hadda ninkaas aniga iga xirnaa oo kaas oo ka qaaday. Marka halkaas ku dhufanaysaa done baad dhahaysaa. Marka waa sidaas group-yada oo kale in magacaaga arkaan oo kale who can add me iyo group kugu soo diri kara everyone qof kasta kugu soo diri kara ama contacts-ka kugu soo diri kara. Waxaan ka dhigayaa anigu contacts. Marka xaggan waa block weeye, xaggan waxa weeye waa inaad ku xirato far. Salaam.